بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا channel كسويال كميديا qodobadeen ugu waaweyn maanta waxa ay kala yihiin dowladda federaalka oo shaacisay inay wax ka bedelayso bandowga saaran Muqdisho. Turkiga oo faahfaahiyay dalabkii dowladda federaalka ku weydiistay in dalka laga baaro shidaal. dhankaasi wararka caalamkana waxaa kamid ah Sacuudiga oo go'aan ka soo saaray salaada taraawixda. magacaygu waa Maslax Nasiib. fadlan hadda muxuu channelkan subscribe noo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinada ugu dambeysay adigoo mahadsan. haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay isbedel ku sameyn doonto bandowga xilliyada habeenkii ah ee saaran magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. bandowga oo hadda socday labada habeen la soo dhaafay ayaa waxa uu ka bilowdaa 8 fiidnimo wuxuuna ka egyahay 5 subaxnimo. hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay inay dib u eegis ku sameyn doonto bandowga. taliyaha ciidanka Soomaaliya Janaal Cabdi Xasan Maxamed ayaa sheegay in maadaama la gali doono bisha barakeysan ee Ramadaan ay wax ka bedeli doonaan bandowga inkastoo uusan shaacin nooca isbedel. si kastaba yeeshee wararka ayaa sheegaya in wax laga bedeli doono saacadaha bandowga isla markaasna laga yaabo in la qafiifiyo xeerka bandowga. taliyaha ciidanka ayaa dhan kale sheegay in bandowga dowladda ay soo rogtay gaarsiin doonto guud ahaan gobolada dalka, waxaana wararka ay sheegayaan in goobaha la gaarsiin doono ay ku jiraan magaalooyinka maamul goboleedyada raacsan dowladda sida Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. bandowga Muqdisho lagu soo rogo ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladda ku doonayso in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mahdi Yilmaz oo wareysi dheer siiyay VOA ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha Turkiga uu shidaal ugu soo saarayo Soomaaliya kadib markii madaxweyne Erdogan uu shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay sidaasi ka dalbatay isagoo si halilaya ayuu yiri hadafka kulankan waxa uu ahaa iskaashi dhexmara labada dhinac haddii ay ahaan lahayd macdan baaris, xoojinta dhanka awoodda iyo farsamada wasaaradaha, iyo sidii shirkadaha gaarka ah ee aan dowladda ahayn ay u maalgashan lahaayeen dhinacyadaasi oo aan soo sheegnay Soomaaliya. sidoo kale safiirka ayaa sheegay in wadahadalladii ku saabsan arrinta iskaashiga batroolka uu soo dhexgalay cudurka dunida oo saameynta ku yeeshay coronavirus, balse ay hadda ka shaqayn doonaan sidii ay u sii socon lahaayeen wadahadallada isla markaana ay macquul tahay xilli kasta wasiirada ay kulmaan. muftiga ugu weyn Sacuudi Arabiya Sheekh Cabdilcasiis ayaa sheegay in salaada taraawixda bisha Ramadaan iyo midda Ciid al-Fidriga lagu eegi doono guryaha haddii faafitaanka cudurka coronavirus uu sii socdo. waxaa sidaasi wareysay wakaaladda wararka ee Reuters. waxa uu sidoo kale sheegay in salaada Ciid al-Fidriga ay la mid tahay sida uu qoray wargeyska. bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa bilaabanaysa toddobaadka soo socda. Sacuudi Arabiya ayaa bartimihii bishii Maaj joojisay in 5 salaadood oo maalinlaha ah iyo salaada Jimcaha lagu tukado masaajidada, taasoo qayb ka ah dadaallada lagu doonayo in lagu xakameeyo cudurka coronavirus. waxay sidoo kale joojisay cumradii iyo booqashadii masjidka Nabigeena sallallahu wasallam calayh iyadoo la hakiyay dalgalkii la siin jiray dadka dibadda ka imaaday si ay u soo booqdaan labada xaram. dalka Sacuudiga ayaa waxaa laga diiwaangeliyay 6380 kiis oo cudurka COVID-19 ah iyadoo dhimashada gaaraysa 83 qof oo la xiriira cudurkaasi. gudahaan intaas ay kusoo gabagabeynaa wararkeena. warkan warka xiganta kulmi doona waa aniga Maslax Nasiib. sidaas iyo amaana Allah.